kulanti wacan akhyaaray soo dhawaada meel kastoo dunida ka joogtaan kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay muuqaalkeena waxaanu ku eegi doonaa saaxiibayaal waxyaabaha ay wargeysyada caalamku ay ka qoreen saaxadda kubadda cagta muuqaalkeena intayna bilaabin saaxiibayaal like saara sina share garaysa asxaabada noo gaaro haday tahay markii ugu horeysay soo booqatana fadlan rukumo oo kambalelkan furo saad la socoto wararkii ugu dambeeyay dhaqaaqa suuqa kaliibsiga iyo waxyaabaha ku cusub kooxdada mar labaad soo dhawaada saaxiibayaal hadaynu ku bilowno funaanada xadiga kooxdaasi Real Madrid Federico Valverde xaalkiisu noocan kadib markii uu soo dhamaaday kulankii xalay ee Fodisterian Atletico Madrid xaalkiisu noocan Valverde wale askarta Simone oo tababartay inaan si fudud dhibca looga qaadan karin adoo ku dhibtooday maahaane dhibcaha si fudud halka kula maraysa wale ma jirto Real Madrid xalay waa ku dhibtootay guushay gaadhay xadigeeda Valverde ee goolka labaad ku turtay xaalkiisu noocan sawir laga soo qaaday markii uu soo dhamaaday kulankaasi Melida magaranka Valverde noocan sidoo odaygu u dhig baxay xalay kulan adag buu hawle xaalkiisu noocan odayga Atletico Madrid si fudud dhibca looga qaadan karo kooxdaasi Barcelona waxay qaban qaabinaysaa in afarteeda kabtan Sergio Busquets, Piqué, Jordi Alba, Roberto oo dhamaantood da'doodu weynaatay waxay doonayaan khadka ay ka saaraan oo saddex kamid Sergio Busquets, Piqué iyo Jordi Alba in la filayo sanadkan inay ka bixi doonaan Barcelona waxay wadaan inay afar kabtan oo cusub ay kooxda ay u magacaabaan isla maalmaha soo socda waxaana isla qaateen Xavi iyo madaxweyne kooxdaasi Barcelona in Lewandowski saxiixa cusub ee Barcelona ay dhawaan sameysay in lagu daro kabtanada afarta kabtan cusub sidoo kale waxay doonayaan ku daraan xidiga daadeer kooxaasi Barcelona ee Pedri oo xidigan 19 jirka waxay doonaysaa Barcelona dareensiiso miqaamka kooxda ka taagan yahay sidoo kooxda muhiimad u yahay waxay doonayaan afarta ay ku daraan sidoo kale Ronaldo Araujo oo isaguna daayira ayaa ay kooxda Barcelona ay ku dartay waxaana ay rabtaa inay ka dhigto kabtanka saxda ee kooxda Barcelona goolhaya Ter Stegen bay qabanayaan Xavi iyo madaxweynuhu ay ka dhigaan kabtanka cusub inkastoo isagu 60 jir uu yahay hayn warar ba soo baxaya oo wargeysyada ay qorayaan in Xavi iyo Piqué xaalkooda xun yihiin tababarahan iyo waliba ciyaartooygan oo ku soo wada ciyaaray kooxda Barcelona oo hadda Xavi uu tababar ka yahay kooxda Piqué oo 15 jir ayaa waxa uu gabi ahaan buu ka saaray khadka kooxdaasi Barcelona kuma soo darwa runtii shaxda oo goor u ciyaaray baryahan lama sheegin waxa leeyahay xaalkoodu ma xuma oo labadan xidig tababarahan iyo xidigan waa isku korayaan waxa leeyahay xaalkoodu ma fiicna oo iskuma wanaagsana Barca waxa isha ku haysa oo warar kale oo iyaguna soo baxaya xidiga khadka dhexe ee kooxdaasi Chelsea ee Jorginho oo si bilaash ka bixi kara kooxdaasi Chelsea xagaaga soo socda waxa laga yaabaa in laacibkan aanu heshiisku ku dhino oo si bilaash ka bixi kara waxa ku jira sanadkii ugu dambeeyay ee qandaraaskiisa ayuu ku dhex jira markaasi Barca isha ku haysa waxa rabtaa sida Alonso kale amba sida Christensen oo kale in si bilaash ay ka soo qaadan karto Jorginho runtii koox badan baa diidaya Chelsea waa laga yaabaa in heshiis ay soo bandhigto laakiin hadii uu laacibkan uu go'aansado inaanu kooxdiisa aanu haba yaraatay wax heshiisa aanu u saxiixin Barca ayaa doonaysa in laacibkani ay si bilaash ku qaato si dhow ay ula socotaa xalka laacibkaasi Haaland runtii waa goolyahan cajiibka ayna waalay maalmihii ugu dambeeyay 10 kulan oo ciyaaray dhammaan horyaalada ha noqotay Premier League iyo waliba Champions Cup 14 gool ayuu dhalay runtii kulamada ciyaaray oo goolashiisa waa kala badan yihiin markaasi waxa la eegay celcelis ahaan daqiiqadaha uu ciyaaray daqiiqad kasta imse gool buu dhalin karaya waxa lagu leeyahay marka 52 daqiiqo ee kastaba gool buu dhalay marka 14kaasi kulan 90 daqiiqo loo eegay 52kii minute kastaba gool ayuu laacibkan dhalay runtii waa gool machine kooxaasi Manchester City laacibkan waa la dhacsan tahay Pep waa ka yaabay waa ka qeyriyay laacibkani kooxda hadii aan eegno toddobaadkani oo loo baxayo kulamada UEFA Nations League oo qaramada ay Fodisteri doonaan kulamada saaxiibtinimo ee ka horeeya World Cup ay isku sii diyaarinayaan xulalku oo ay ilaa xidigooda ay ku sii kala xulanayaan runtii toddobaadkan iyo toddobaadka dambaba waa la maqnaanay horyaalada
waxaan eegi doonaa kooxaha hoggaanka u haya shanta horyaal ee waaweyn. Horyaalka Premier League waxaa kaalinta koowaad ku raaxaysanaysa oo maalmihii ugu dambeeyay amba tan iyo bilowgiiba aan marna koox kale aan gacanta u gelin. Arsenal ayaa hayso hoggaanka sidii kulankii koowaad ay qabatay oo weli ka degla. Arsenal ayaa labada toddobaadna sii haysan doonta horyaalka waddankaasi Spain ee La Liga-na. Real Madrid ayaa iyaduna ku raaxaysanayso kadib guushii dhibka badnayd ay kasoo gaadhay Atletico Madrid, iyadoo labada toddobaad sii hayn doonta horyaalkaasi. Napoli ayaa iyaduna Serie A iyaduna ku raaxaysanaysa. runtii Atlanta ayaa wadahay, laakiin farqiga goolasha ay Napoli ku hayso hoggaankaasi Serie A. Francisca League 1 waxayse PSG awl PSG ku haystayba waa cidna sanadkan iyada PSG ayaa hoggaanka haysa. labada toddobaad way sii hayn doontaa. haddaba horyaalka waddankaasi Bundesliga oo Bayern ay ka jaban tahay oo xaalkeedu allow sahal yahay oo kalama hoose ay ku jirto, runtii waxa haysa koox yaro Junior Berlin ayaa kaalinta koobaad haysa oo Borussia iyo Bayern iyo kooxo kale waaweynaba xaggoosii ku jiraan oo kooxdani ayaa iyadu bisbad baa ku imaaday horyaalkaasi Bundesliga. kooxda yar bayso labadaas toddobaad kooxdaas yar ayaa sii hayn doonta horyaalkaasi Bundesliga. xadiga khadka dhexe ee kooxdaasi Flamengo ee waddankaasi Brazil Joao Gomes waxa isagoo si toos u sheegay inuu u doonayo inuu ku biro kooxaasi Liverpool oo kamid ah kooxaha aadka loo xirinayo oo doonaysa bilaa January ay soo qaato. waxa uu leeyahay laacibkani Liverpool ayaan rabaa inaan tago si aan u ciyaaro horyaalada ee Championka. laacibkan horyaalkaasi uu ku riyoonayo inuu ka ciyaaro si toos ah. waxa uu warbaahinta ugu sheegay oo la laabsho lahayn inuu doonayo inuu Liverpool ku biro soo ciyaaro horyaalkaasi Championka oo fursad u helo inuu ka ciyaaro horyaalada ee Championka. daayirada ku tartamaya sanadkani abaalmarinta daayirkii ugu fiicnaa sanadkani waxa kamid ah shanta xidig ugu sareeya ku tartamaya waa Pedri, Bellingham, Gavi, Musiala, Camavinga waa xidiga ku tartamaya. haddii eegno shantii sano ee ugu dambeeyay laacibiinta ku guuleystay haddii kasoo bilowno 2017 Mbappe ayaa ku guuleystay daayirkii ugu fiicnaa. Delight, Joao Felix, Haaland sanadkii ugu dambeeyna waxa ku guuleystay Pedri. haddaba sanadkan 2022 ku guuleysan doona Pedri isagoo mar labaad bisharaxay. Bellingham, Gavi, Musiala, Camavinga waa inta loo badinayo in midkoodun uu ku guuleysan karo xidiga daayirka ugu fiicnaa sanadkani. wararkeena ciyaaro waa naga intaas saaxiibayaal, intaynu ku kulmi doono wararkeena kale. wassalaamu calaykum.